waxaa la xaqiijiyey dhimashada 2 qof oo uu ku jiro wiil yar oo 3 sano jir ah kadib markii uu dab qabsaday guri ku yaalo xaafadda Islii iyo Majengo ee deegaanka Kamukunji magaalada Nairobi. Booliska caasimadda dalka ee Nairobi ayaa laga soo xigtay in loo soo gudbiyey 10 dhacdo oo la xiriira shil dab ah. Waxaa dhacdooyinkan ku dhaawacmay ugu yaraan 7 qof iyadoo ay jirto burbur hantiyeed. Dhacdadii ugu horeysay ee dab la xiriirta ayaa laga soo tabiyey dabaqa 3aad ee guri ku yaala wadada koowaad ee xaafaddan Islii, isla markaana wiilka 3 sano ee ku geeriyooday. Wararka ayaa sheegay in wiilka yar oo lagu magacaabi jiray Xuseen Farax uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray iyadoo xaaladiisa lagula tacaalay isbitaalka. 3 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay dabkani. Booliska iyo dadka deegaanka ayaa ka shakiyay in dab uu ka dhashay waxyaabo qarxa. Hase ahaatee haatan baaritaano ayaa socdo. Meydka qofka kale ee 27 jir ah ayaa laga helay dab ka dhacay xaafadda isku raranta ee Majengo ee deegaanka Kamukunji ismaamulka Nairobi. Waxaa meydka 2 qof loo qaaday goobta meydadka la dhigo iyadoo ay socdaan baaritaano dheeraad ah. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa xaafaddan Islii ka dhacay shilal dab ah kuwaasi oo geysanaya khasaaro hantiyeed iyo naf.